بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى المقال كان maanta waxaan ku arki doonaa runtii application aad muhiim u ah isla markaana inaga caawinaya full course sidii aynu course dhammaystiran oo u qaadan lahayn computer طبعا المقالات يعني كنا نقول إنه حكمتها مقالات الكمبيوتر صار نشان طبعا بودكاست يعني سمعني مالك ودمي دنك كوميونيتي كان كل وداعينا حالها أتكو سعد سنة سو حكمتها إن أي مقالة كديار إنه كمبيوتر كقاب كل هذا يكسده المقال waxaan ku arki doonaa application ka caawinaya inaad course dhammaystiran qaadato isla markaana bilaash ah wax internet aan u baahnayn gabahan aad baranayso computerka boqolkiiba 40 basickiisa iyo wax walba saada kooda sheeg wax internet uma baahna wax adag maaha meelaha isaga ayaa ku kala qaybinaya si fudud baad ku baranaysaa runtii waa qaab cajiib ah loo diyaariyay application-ku waa free wax iiba uma baahna wax xiisina male completely wuxuu u baahan yahay inaad ka faa'iideysto طبعا سيدنا عدد لينك application ka aad ku ka download karaysa lahaydeen waxaan ku soo lifaaqay xagga description ka runtii application ka qaabkeen adeegsanayno iyo waxyaalaha application ka gudihiisa muuqaalkeen ku arki doonaa hadaba yani sad application ka u barato qaabka loo adeegsanayo waxa iyo qaabka aad u isticmaali lahayd waxa wanaagsan inaad muuqaalka daawato oo ilaa dhamaadka daawato hadaba saynu aragno application ka qaabka loo adeegsanayno in muuqaalkeena hore ku socono ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta ورمك هالك application كوي نوصارن حلو يقانا all about computer basic وحلا على وحي كسابسن computer أولان basic يسمى computer أولان حتى application كفر application قاب كان ينوغو صباحية صارتان أنا راح دي all about computer وي ماها all about computer basics runtii waa computer waa application aan muhiim u arkay inay la wadaago isla yahayna wuu ka anfacaya wax wal oo ku saabsan computer basickiisa ama computerka hoos qaybtiisa hoose application interface-kiisa qaabkan ayuu noogu soo baxaya completely waa free kaliya application-ku wuxuu leeyahay xaysimahaas ku tusaya xaysimahana waa haddii aad internet ku xidhantay saad aragtaan anigu internet ayuu telefoonka ku xidhan yahay muuqaal ku duubeyno marka haddii aan internet ka baxo completely waa xaysiin halkan ma yaalaan maadaama aynaan ku xidhnayn wax internet ah haddaba application-ku soo noqoto maadaama aan xaysiinta waad iska xidhi kartaa oo waxaa ku xidhantay internet hadaba muqsan application-ka noo soo baxo waa main interface halkan dabcan halkan waa courses-ki application-ku subsections buu si qaybsan yahay hadaba inta sections-ki subsections-ku gal application-ka aynu qaybtan tarno ugu horeyn option-kan halkan waxa nooga soo baxaya application-ka sections-kiisa muhiimka ah ee top level-ka ah waxa kamid ah saad oo ka saraataan computer notes computer-ka note-kiisa photoshop oo ah runtii application-ka ugu muhiimsan ee lagu edit karayo sawirada iyo borderka page maker application lamida hardware oo computerka gabi ahaanba hardware-kiisa iyo computerka waxa ku saabsan networking computerka iyo networking-kiisa oo dhan waxa ku saabsan MS Access Microsoft Access iyo databases loo sameeyo MS Excel sida Excel-ka loo isticmaalo Microsoft Excel sida loo isticmaalo Corel Draw sida loo isticmaalo Flash MX full forms iyo shortcut keys oo runtii very important ah hadaba inta waxaad halkan ka tagi kartaa sections-ka laakiin runtii sectionada halkan ku yaala ma badna laakiin sections-ku soo dhanyihiin oo ku halkan ku jira hadaba waxaan doonaynaa in inagu sections-ka inta application-ku wax setting iyo wax extra mala kaliya waa learning waxa ugu muhiimsan hadaba markaan halkan joogno waxaan doonaynaa balna Photoshop-kan galno san koordination application-ku ma baahna wax internet hadaba halkan saaragtaan waxa yaala opening an image sidee loo soo furaa sawir halkan oo kale waa sawirka dimension-kiisa inaad ka dooranayso cabirka sawirka pixels-kiisa maga dhamaan isaga ku baraya uma baahnayn inaad wax ka taqaano Photoshop gabi ahaanba isaga ku baraya waxaanaad furayso sababta aad u furayso kaliya inaad akhriga lagaga baahan yahay soo kale waxay leedahay application aan ku jeclaystay dheeraadka waxa kamid ah application-ku graphic ahaan buu ku tusay wixii sida aragtaan wuxuu ku leeyahay file dooro open dheh kadib wuxuu leeyahay halkan ku qor magac size-ka dooro isaga waa halkan size-ka kugu sheegaya iyo dimension iyo pixel iyo image resolution waxay kala yihiin sida loo save gareynayo haddaan dib uga noqdo halkan oo kale ku tusay cropping image sida image-ka u crop gareyn lahayd halkan oo kale erase sida u erase gareyn lahayd waxyaalaha qaar image-ka uga goyn lahayd oo kale layers-ki oo kale si full ku baraya section-kan soo aragtaan intaas oo dhan marka runtii waa application-ku waa very impossible
aan idhaahdo very important. marka hadda Photoshop shortcuts aad adeegsan karto si macnaha aad shaqada waqti hore ugu dhamayso saad aragtaan. marka runtii waa full course Photoshop ku kooban ay halkan ka helayso. halkan waxaad ka helaysaa hardware computerka iyo hardwarekiisa iyo sida uu shaqeeyo iyo wax ku kooban. operating system muxuu yahay, sida loo isticmaalaa, maxay kala yihiin computer hardwarekiisa saad aragtaan. DOS muxuu yahay, hard disk muxuu yahay, file system muxuu yahay, BIOS muxuu yahay, F disk muxuu yahay. runtii markaa dee kaga dhammaanmayna muuqaalka hadii gallo, laakiin waxaan doonayaa bal inaan main sections kase aan si overview dadka ku cusub computerka usii siiyo. haddana iminka MS Excel kan oo kala galo. MS Excel kan waa runtii waa application aad muhiim ah loona adeegsado xisaabaadka badanaa adeegsadaan businessyadu si ay macnaha transactionada ama iibabka maalinka dhacayo wax lamid ah ay ugu qortaan. halkan oo kale waa full course Excel ah. waxaad baranaysaa sida Excelka loogu shaqeeyo, working with Excel, working with spelling and grammar errors, ciladaha qoraalka oo kala sida uu caawineed, zoomka. halkan oo kale waa symbols qaabka isticmaalayd, text boxeska qaabka aad u isticmaali lahayd, isaga completely ku baraya. kaliya waxaad u baahan tahay inaad adeegsato in waxyaalaha practicalka oo u baahan yahay application-ku aad samayso. haddaba haddaan soo sheegan nimaadno kan oo kale waa MS Access, sida database sida loo sameeyo. waa full course saad aragtaan. planning buu ku leeyahay database, data organization access, working with tables, input mask. runtii gebi ahaanba waxaad u baahan tahay ayaa iska yar. wuxuu ku siinayaa runtii waa complete guide boxinaya guide complete oo dhammaystiran. halkan oo kale waa video editing, Corel Draw buu ku tusayaa, working with tools, working with curve objects, formatting lines and outlines, working with color. marka halkan oo kale soo aragtaan waa complete ayuu ku siinayaa qaabkaad wax u maamulay. waa runtii application very important. Corel Draw waa runtii image editor, not video editor I think inuu yahay. marka saad aragtaan halkan waa complete. marka runtii waa application aad u fudud. dhammaan sectionskan waxyaalahan aad ugu jeclaysto waxaa kamid ah shortcuts oo runtii very important ama computerka la adeegsanayo kana qayb qaata macnaha qofku sida dhaqsiyaha computerka u isticmaalayo iyo yani qofku sida uu computerka effective ugu yahay. waa complete saad aragtaan dhammaan waxyaalaha aad adeegsan karto computerka. marka runtii waa application aad muhiim u ah aan ku talinayo inaad adeegsato si fududna aad ugu baranayso dhammaan computerka waxyaalaha basickiisa. waa saad aragtaan waa shortcutada function keys, waa kuwa F ka ah oo loo soo gaabiyo function. halkan oo kale waa kuwa controlka ah loo adeegsanayo alt iyo wax la midka. halkan oo kale waa command-ka. marka runtii saad kordhiyo sheegu waa application waxaan ku tilmaano inaan garanayn marka loo eego. waa free, waa completely free, wax kaaga ma baahna internet. waa kaliya inaad yani adeegsato iyo inaad barato. wuxuu u diyaar yahay inaad ka barato. xitaa ifan wuxuu leeyahay saad halkan aragtaan Google Chrome-ka oo ah browserka ugu badan la isticmaalo shortcuts-diisa oo runtii si fudud ku barayo. marka saada goor ku sheeg kaaga ma baahna wax isaga wax walba ku fahansiinayo. waxaad garan weydana dabcan waxaad garan weydana inagu soo lifaaqa linkiga xagga hoose comment ahaan nagu reeba dabcan si inagu jawaabno hadii maadaama wax cilada oo ka yimid application. waxaan saan ku sheegtay halkan waxa leeyahay Firefox adaan ku dhufto dabcan waxaad aragtaan Firefox complete ah. marka waa shortcuts waa sida kaliya flash images. marka runtii waxaan ku tilmaamnay ma jirto. waa application easy to use kuna siinaya functionality aad u fara badan oo aad ka faa'iideyso. marka runtii ma doonayo inaan muuqaalka nagu dheereeyo soo galaan muuqaalka caajis iyo boring ka dhigo ma doonayo. adiga ayaan ku deenay inaad application gasho wixii misunderstanding iyo wixii faham waaya ee ka yimaadana dabcan xagga hoose inagu soo lifaqadaan commentiga si inagu jawaabno. yadaa u baahantiin sectionada qaar inaynu casharo ka samaynaba oo inagu sharaxno. taasna it's all about you. aan idhaahdo weydika idin taala. marka wixii feedback ay ka soo noqdo xagga hoose inagu lifaaqa. runtii waxaan idin sheegayaa application-kan iyo ku xiga waxay noqon doonaan application ka hadli doono sida computerka loo adeegsado iyo sida ugu fudud ee computer loo isticmaalo. marka runtii muuqaalka intan aynu ku koobsanaa ma doonayno inuu muuqaalku inagu dheeraado oo muuqaalkan aynu boring ka dhigno hadda kor idin sheegay. fadlan haddii aad inuu muuqaalkan ka faa'iideen inoo like gareeya. runtii taas waa waxa ugu fudud ee aad inoo qaban kartaan.
maadaama ay naga caawinayso in YouTube muuqaalkeena dad badan tusiyo, taasna ay keenayso in muuqaalkeena aan idhahdeen kanaalkeena dad badan kusoo xidhmaan. sidoo kalena anaga waxay faa'iido noo tahay inaan ogaano muuqaaladan soo gudbino in micnaha ay yihiin muuqaalaad ka hesheen oo wanaagsan, si aan ugu dhigarano inaan muuqaalaad fara badan anaguna aan soo gelino. marka mar labaad waxay ka codsay haddii aad muuqaal ka hesheen oo la garay, haddii tahay markii kugu horreysay channelkaad soo booqatana runtii subscribe inaad saarto ayaan kugula talin lahayn, si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono. intaynu muuqaalkan ku xigkulmi doono waxaan idin rajaynaynaa khayr aad u fara badan dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.